waxaan maanta halkaan hambalyo uga diraynaa anoo ku hadlay afka dhalinyarada mataqaana magaalada Muqdisho anoo ku hadlay afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa maanta in halkaan hambalyo uga diro balaaran ciidanka xoogga ee geesiyaasha ee maamul goboleedka Puntland kuwaas oo ku guuleystay inay mataqaana ka hortagaan faldambiyad balaaran ama qarax balaaran oo la rabo in la beegsado caasimada ganacsiga ee maamul goboleedka Puntland arrintaas waxay arrin geesinimo ku dhaqaaqeen ciidanka mataqaana Puntland gaar ahaan ciidanka booliska ee ka howlgala mataqaana magaalada Boosaaso ciidankaas oo ku guuleysay qarax lagu qiyaasay inuu ahaa 20 kun oo tan qarax lagu qiyaasay qaraxaas oo lagu hoos qariyay baabuur qudaar waday gaarigaas mataqaana watay taarigooyin kala duwan oo ilaa taarigooyin wuxuu taaliyay gaarigaas kala duwan ilaa 5 taariga gaarigaas oo taal la yiri taarigooyinkaas mataqaana waxa kamid ah taarigada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland si la sheegayo mataqaana waayihii dambe gobol kamid ah mataqaana Soomaaliland ayaa waxa la yiri waxa isku aruursaday kooxo burcadnimeed ah kuwaas mataqaana raba inay dhibaatooyin u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Soomaaliland ee ku nool gobolada Puntland ee ku nool mataqaana dhammaan dhulka Soomaaliyeed baabuurta taarigada wataan waxa kamid ah taarigada dowladda federaalka ah oo aan malanay mataqaana in si macmal ay ku heleen oo waliba loo taariga oo AD ay wataan baa mataqaana nimankaas ma hal taariga way oo dowladda federaalka ay leedahay AD iyo taariga ay leedahay xukuumadda Soomaaliland horta laba taariga la hayaa gaariga baabuurta wataa laakiin ilaa 5 taarigo bay baabuurtaas wateen baa la yiri shacabka hadda la wadaagna taarigooyinkaas waxa kamid ah waa aragtiin marali AD taariga Soomaaliland AD 74 boota taarigada Soomaaliland wataas ayadana waa aragtiin maamuleenaya taarigada Soomaaliland ayadana waxa weey sidoo kale waxa weey taarigada Soomaaliland waa aragtiin halkaas waa aragtiin oo ayadana waxa weey waa 300 oo 30 waa 3 milyan 522 weey Soomaaliland waa aragtiin ayadana Soomaaliland taarigada Soomaaliland saabta carabiga aad ka taqaana aad u arkada salaaliga ciidanka mataqaana xooga ee booliska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ku guuleysay qaraxaas inay fashiliyaan qaraxaas oo looba had u dhici lahaa in malaayiin Soomaaliya naftooda ay waaylahaayeen in khalkhal uu gali lahaa mataqaana xarunta ganacsiga ee Puntland ee Soomaaliyeed arrintaas waxay arrin masiibo qaran ay ahayd nimankii mataqaana taliyihii booliska ee qaybta gobolka Bari ayaa arrintaas ku guuleysay qaraxaas wuxuu maray magaalada Cadaado wuxuu maray Gurceel wuxuu maray Beledweyne wuxuu maray Gaalkacyo wuxuu maray Garowe wuxuu maray Buurtule intaas waa socda qaraxaas waxa loo qabo gaari inuu qudaar wada loo qabo gaariga agudmaysti waxa ciidan ku guuleyseen inay qabtaan labada nin oo lagu qabtay qaraxaas waxa ay mid yahay Cabdullaahi Xaaji lagu sheegay oo mataqaana la yiri wuxuu ku dhashay magaalada mataqaana Balcad ay nin kale oo asagana magaciisa ku soo gaabiyeen Cabdille oo asagana la sheegay inuu ku dhashay mataqaana Jubbada Hoose labada nin baa qaraxa waday oo reena qarxiyaan oo kuwa nimanka wajiyada waa aragtay shacabka Soomaaliyeed waa aragtay wajiyada Soomaaliyeed waa labada nin dhalinyarada weeye ma aragtay labada nin baa waday arxan laawayaal bay ahaayeen qaraxina waa arkiisi waxaas qaraxu ahaa 20 kun oo tan baa qaraxa lagu qiyaasay si taliyaha booliska noo sheegay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel joogan aad baan u salaamaya waxaana balyo gaar u diray taliyihii booliska ee ku guuleysay howlgalka markaa fulinayay iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka hortagay qaraxaas dhammaantood ma sintiin shacabka Soomaaliyeed meel joogan waxaan u taqaanaa ugu boorinayaa in sidaas silmada looga hortago qaraxyada raba shacabka Soomaaliyeed lagu beegsado ka dhacaya magaalada Muqdisho raba in laga beegsado gobolada kale nabadda la beegsado rabo ma ahan mataqaana qarax dad gaar ugu taageersanaya ma ah waa qarax raba in lagu waxyeeleeyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda dhammaan shacabka Soomaaliyeed thank you so much halka hawsha la wadaan leeyahay taliyahana waxaan leeyahay hambalyo adiga ciidankaaga